مسبحي ودنا دنيه سكاكا بنت قد كدارتو اسكت دنيدينيو دعديو walaalniyo dadka nolol la jecele مسبحي ودنا دنيه سكاكا بنت قد كدارتو دعديو walaalniyo dadka nolol la jecele بيحي عبدي مرشح مدحوين النمو حسبك محافظك كلية waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa sanadkii 1948 waxa uu sanadkii 1960 u dhameeyay dugsigii hoose dhexe waxana uu ku dhameeyay dugsigii hoose dhexe ee biyo dhacay ee magaalada Hargeysa 1970 ilaa 73 ayuu waxbarashadiisii dugsiga sare ku dhameeyay dugsiga Camuud ee magaalada Boorama wixii intaa ka dambeeyay wuxuu Muuse Biixi Cabdi shahaadada bachelor degree-ga ee cilmiga bayloodka diyaaradaha ku soo bartay wadankii loo oran jiray Kazakhstan ee midowga Sovietiga gudoomiyaha xisbiga isla markaana ahaa murashaxa xisbiga maxaafidka ah ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka mid noqday 26 qof oo markii ugu horeysay loo qaatay ciidanka Soomaalida Muuse Biixi Cabdi waxa uu markii dambe ka mid noqday ciidamadii dawladii kaligii taliskii Maxamed Siyaad Barre ee la oran jiray Afasiyan intii uu ku jiray ciidamada cirka ee Soomaalida waxa uu tababar kala duwan oo ku soo qaatay wadamada Aasiyaanka iyo midowgii Sovieti oo la xiriira hawlihii dhinaca ciidamada militariga khaasatan ciidanka diyaaradaha oo uu ku takhasusay Muuse sanadkii 1980 wafdi ka socday dawladda Soomaaliya oo military u badnaa waxay booqdeen wadankii Mareykanka gaar ahaan magaalada Washington DC Muusena wafdiga ka mid ayuu ahaa waxana uu tababar ku soo qaatay hubabka iyo qaababka militariga khaasatan gobolka Ohio sidoo kale waxa uu kooras gaaban oo hal sano ah uu ku soo qaatay dugsiga Virginia Military Institute cadaadis xooggan oo dawladii Maxamed Siyaad Barre ku haysay goboladii waqooyiga ayaa sababay in siyaasiyiin iyo saraakiil badan oo Soomaaliland ka soo jeeda ay ka goostaan dawladii kaligii taliskii Siyaad Barre iyagoo ku biiray ururkii SNM murashaxa xisbiga kulmiye isla markaana gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ku soo biirtay ururkii SNM 5 May 1985 ayuu diyaarad ka soo raacay magaalada Dubai halkaas oo uu si toos ah ugu biiray ururkii dhaqdhaqaaqa ummadda Soomaaliyeed SNM isagoo halkaas ka bilaabay dagaaladii adkay dawladda Siyaad Barre laga horimiyay waxaana uu ka qayb qaatay shirar muhiim ah oo SNM khadalka dagaalka iyo sidii Soomaaliland looga xoreyn lahaa kaligii taliskii Maxamed Siyaad Barre ay bilowday gudaha Itoobiya iyo Soomaaliland مع الشغله وانا كده فضيحه waxa gaashan la saaray muddo dheer ciidamada ka soo shaqeeyay markii ugu dambeysana ahaa taliyaha dugsiga madaafiic ilaa Hargeysa markii dagaalku bilaabmay Maxamed Cali gaashan la dhexe waana ka shaqeeyay oo ahaa madaxa hawlgelinta gaaska labaad operation officer second division Hargeysa markii dagaalku bilaabmay gaashan la Xuseen Xasan oo booliye ahaa ciidanka cirka أنا ماذا حاولت حمر مركز أبو halkan waxa kala oo qortaan oo garanaysan ragga asaasiga saaran inuu yahay soo galay waa musanadi aniga duuta xiran iyo Ahmed Jabaan oo ragga dagaalad soo saareen markii hore ahaa sida imika saraakiisha waaweyn ee xilaalada inta waxay dheer waxaan u fidinayaa afiir ama baaq saraakiisha kale Soomaaliyeed ee ku hadhay gacanta cadawga saraakiisha waxaan leeyahay waxaan ka xumahay in rag badan oo aan garanayo aqoon iyo garashada ku ogaa ay maanta wax ka wadaan dagaalka dadka Soomaaliyeed lagu leeyahay taliska Siyaad Barre caayada badan ayuu SNM ka fidiyay oo waxay doonayaan inay goori u moostaan waxay doonayaan inay ummadaha kale degan xaqaan waa dadka saraakiisha Soomaaliyeed waxaan u sheegay waxaan u dagaalamaa inay tahay dhulka Soomaaliyeed dhammaantii oo laga xoreeyo taliska fashiis in la
helo maamul dadku ka wada qayb galo oo garsoor xad arag waa isugu hayam mujaahid muuse biixi cabdi waxaa ka mid ah shirkii lagu doortay guddoomiye sanam oo loo kala doortay cabdiraxmaan axmed cali iyo guddoomiye ku-xigeenkii oo loo doortay xasan ciise jaamac sanadkii 1990kii iyadoo deegaanka balgubadle sanam ay ku dooratay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen muuse biixi cabdina wuxuu ahaa guddoomiyihii gudahaas ee shirkaasi hanaan degan ayuu ku dhacay oo kusoo dhammaaday waxaana madaxweynaha haatan talada haya ee axmed maxamed maxamuud siraanyo uu waqtigaasi ahaa guddoomiye sanam uu si sharaf leh xilka ugu wareejiyey cabdiraxmaan axmed cali xidhiidhintii muuse biixi cabdi iyo guddoomiyihii shirkaas ee waqtigaa bal dib ila daawada شن وآمس نابغل يسقاشن يقدومية نابغل كل سقاشن قدومية أوروك الدقاقة وطنك الصومالي وهاجك waxa aan kajeynaya haddii aan laydhaa in baldoorka ururku inuu isu dayo inuu ka baxo isqabashadii iyo ku jiqsiidii halkaas ina dhigtay ee waktiga faraha badan inaga lumisay doorashada ku jiray inay haniye haddii aanay dadka ku soo xidhin waxa la yidhahdo isgurtoobayaa ma jiro waa mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبد الرحمن أحمد علي قدوميها شنات أورك دقدقاق وطنك الصوماليات ومان تعد كيسي كوهر طلبات وحوي نيرون باصوب حرها لو ما صوب بحرين السجع كصوب حي السجع إنه لا شقينين دبراتين تاسوية قوانين بيننا هاي حبل أقول لك بيننا هاي سيل أقول أنا ولا بيننا هاي واحد مدرك هاي ناي أنا برا واستقص سيسعنا الكيس كده هلا يش حيش هتاي لا هاي هلا جبودو حنون هتاي لا هاي هلا أتكيستو ككرني وحوين مودين أنا قفنا هذا حريات ونكسر أو قمن أيان سني عبد الرحمن رجع نشوفه من هدوي هذه بين ما يو إن إنتي نجيب بنا وحن مهم والله كما والله نيجي هراء إنا أينو هراء قرنو هراء هاي 10 ولا 2 ولا هنا هاتو أنكو عاون ولا كين وشة ويتمهم كيه من ولا تاسر وحكيه ليا مش القدومية فوق بقى عندهم ثوار هذا كرجال مايو أوي وإسكعادو سياسة كم تهاي ديمقراطية كم تهاي وحايرو دجال منه هلقا منه هلكا إنا دجاي ومدني هلكا وري بعد كا إنا وري وحوي وحقدون وديمقراطية كم تهاي أساسك حكومة أي كنت جايين نظام كله يقارن الديمقراطية معناه يدو معها ولا سكون عيا معناه يدو معها ولا سكون دريا معناه يدو معها ولا جو كلا تجاي شركة إن هالكاس علي مدة دير ومقلسين نكي ساك إلى وعدي إن كستوى عن فدينه وح كستوى عن هان عاد يقول إنه أي أجعل إلى إنه كلا تكنه أما إنه سكجهر نماذج إلى هاي كمان ديجو دونه ولقي اللي ديمقراط الله أكبر الله أكبر وحال ذي الشيء هدي أروح لها رك صاحب بدأ ولا لها وحوق يسوى أفكار واجري تاسوى عادية ونظام كديمقراطية كمذا ووح أساس كوش كسرعة كبيرة وحال ذي الشيء والحال وحسكون إن الدولة بنسكون عندنا هدي سكر له أركي وإيجا سامح وحكى ذي الشيء
وأن بلن إذن كقاضية إن سبوا إذا hawshaydii iyo xilkii isaaraa imikana isaaran oo kulligayna wara saaran aan wari doono aan la shaqayn doono si niyad iyo dacdina ugu jirto hoggaanka cusub maamulka cusub iyo halganka inta muuse biixi cabdi wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiintii iyo saraakiishii ka qayb qaatay aasaaskii golaha guurtida ee somalilan ee lagu aasaasay deegaanka madaweyn ee degmada Fairweyne hoos timaada halkaasi oo in ka badan 200 ergey oo ka kala socday beelaha Somaliland ay isku yimaadeen si nabadgelyada iyo kala dambeyntii deegaanada Somaliland loo soo celiyo waqtigii jabaadeynta SNM laga soo noqday musharaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi waxa uu door laxaad ka soo qaatay shirarkii ka dhacay Boorama Hargeysa Burco iyo waliba Sheekh ee nabadeynta tusaale ahaan shirkii lagu doortay madaxweyne maxamed ibraahim cigaal ee been xarista jannaha ka waramiya ee Boorama murashax muuse biixi cabdi xilkii ugu horeeyay ee uu ka qabtay dawladda ay Somaliland leedahay waxay ahayd dawladdii madaxweyne cigaal isagoo markaas noqday wasiirkii arrimaha gudaha Somaliland sanadkii 1995 mujaahid muuse biixi cabdi waqtiga oo wasiirka arrimaha gudaha noqday waxa uu dalka jiray dagaalo sakeeye waxaana ka qayb qaatay nabadeyntii beelihii Somaliland oo waqtigaasi ay dagaalo dhex mareen wuxuu ka qayb qaatay nabadeyntii dadka walaalaha ah ee Somaliland wada degaa waxa sida oo kale door xal ku qaatay dhisitaankii ciidamada qalabka sida ee Somaliland iyo hanaanka maamul ee dawladnimo muuse biixi cabdi hanaanka xisbiyada badan ee Somaliland waxa uu ka mid noqday xisbigii mucaaradka ee waqtigaas ee kulmiye oo uu ku biiray sanadii 2002 waqtigaasi oo wadanka ay ku soo food lahaayeen doorashooyin kadib geeridii Allah u naxariistay madaxweyne cigaal waqtigaas oo wadanka ay ka bilaabeen olole xooggan oo dhinaca doorashada muuse biixi cabdi waxa uu ka mid ahaa mas'uuliyiintii ka qayb qaatay ololihii kulmiye ku doonayay inuu talada dalka qabto waxaa noo sharafa sida weyna noo soo dhawaysan waanu yabi doonay laakiin maanta sharcigaa noo ogolayn inaanu halkan khudbadana dheer ka jeedino sidaa darteed waxaa erey mahadnaqaad odhanaya oo ku soo dhaweynaya saa aragtaan gudoomiyaha Nelson Mandela Somaliland Sirayo إلهي وحنا كبرنا إنه خارج السيو شرفت يقيمة سيدنا عدوسة دويسين سيدي ولكن مسبح عبدي مكويلي وأنبتين بديكو سيدنا حماسة لنوسة دويي عادي عاد هدنا ما توين ابن الشرع الأيروية الله ما هم كمالتي الله الدور شدا ما سيدنا درادت وعلى جعل هاي أنا آيد لكم ما عندنا قيا إن اللي كم عندكم ارتقاد كيسو دويتها نوسة دويسين مرشح مدحوينها حزبك كلمية مجاهد موسى بيحي عبدي الشراركي قولها دا كلمية أيو كقيب لبادي كل يسديدي وحانا الله دورتي قدومية كباد حزبك كلمية شروينيه لغوغي أمباسطور هوتيل وحانا سديدي سندودو كلمية معارضكاها أو كميدها كهرمودكي كلمية أولولها دورشدا إيا كامبينك بلابي isagoo safarro kala duwan oo badanna ku soo maray gobolada dalka kuwaasi oo la xidhiidhay kulmiye marka uu talada wadanka la wareego uu ku guuleystay sanadkii 2010 markii ku guuleystay kulmiye doorashadii madaxweyne Axmed Silayo loo doortay madaxweynaha waxa muddo ka yar 2 bilood loo doortay gudoomiyaha xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi iyadoo munaasabada balaaran lagu qabtay Mansur Hotel aynu qadar kuna sano xil wareejintii waqtigaasi ee mujaahid muuse biixi cabdi uu la wareegay xisbiga kulmiye
ولا يدعى يا منطق الكنعي حبتين انت هكذا ولا يحسبك كلية ولي وحكوفات فيه أهانا إلي هاي حزب الديمقراطية إلي هاي قول بقى الديمقراطية اللي هو باسبر سوري الآن لغني يبقى أمري أنا وغادري وحكم لها إن مركا حلقة الدولة وخمطه ووريشيو حلقة ووريشيو عندي كوكو للسنة بدخلنا مع قفر الله بحل الصحبة الكريمة مبادئ الرد اللي عندي كلها سنة ثلاثة أنه قرآن كافرنا وأبتي كسو بحي ست برعو وحال مرات هاتكن فرحان وليها إلى عندي كوريشيو بدون يبركة القرآن بكل حاجة أخيارتنا أنا أعطيك حسب غير الشيء أبدا أنا لا أضمن أقولها قلت الكوبا وأنا ما أقدر عليها ما تحرص عليها مرة وأخطبها وفروا هاي وحرق ذلك يفلس بدو ذلك هو كان يوم من حولنا وأنا عليك هذيك يم عليك سياسة وما يكون وما ما رأي كورسي أو يلا فسر الله سيروه كامل يحس بيا سلام غوشنا كلوس هاي مقالة تقول سيدي ديمقراطية وأنا فكرت أول شيء حكي مثلا مجاهد موسى بيحي عبدي مرشح حسبك كلمية مددي قدوميها حسبك هي waxa uu socdaal kala duwan ku tagay wadamo ay ka mid ahaayeen Afrika sida Tanzania, Uganda, Ethiopia, Djibouti halkaasi oo uu shirar kala duwan kaga qayb galay sidoo kalena waxa uu socdaal ku tagay wadamada Mareykanka, Ingiriiska iyo China halkaasi oo mas'uuliyiintii iyo saraakiishii ugu sarreeyay wadamadaasi uu kala qayb galay shirar iyo kulamo gaar ah taasi oo ay ka mid ahayd ra'iisul wasaaraha Ethiopia Mujahid Muuse Biixi Cabdi muddadii 5 sano ahayd ee xukuumadda kulmiye uu ka tirsanaa waxa soo maray isbedelo siyaasadeed oo waayihiisa iyo waqtigiisa lahaa solo con maise sinaniyo walaalimo aan kala sarayn jirin dhammaantiyo wanaaga Soomaaliland ku caan tahay go'aamada xusbiga ee dhaxalgalka go'aamada xusbiga ee dhaxalgalka gaadhan shirweynihi waanu garanay waa u guuxray waa guddoonsanahay waan guddoonsanay
magaca wafdiga oo ka kooban hoggaanka xisbiga guddigii fulinta golihii baarlamaanka wakiilada iyo garabkii haweenkii dhalinyarada waxaan aad iyo aad si kaliya laaba idinka mahadnaqayaa sidaad noo soo dhowayseen ee aan horan loonahay waxaan dareemaynaa inaan saacado badan dad badan danahoodii awlugiyeen oo arday leh oo dhalinyaro leh oo hooyo leh oo hablo leh oo oday leh oo dhalinyaro leh oo ciidamo leh oo madaxda u sarraysa leh aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa jazaakumullah khayr walaalayaal soo dhowaynta maanta aad muujiseen waxay sharaxaysaa oy micnaynaysaa qiimaha ay leedahay iskaashiga is-aaminaadda wadatashiga mabda'a iyo xisbinimadu walaalayaal maanta soo dhowayntiinaasi waxay farriin u tahay oy kalgacantooyo tusaysaa inuu mid nahay kulmiyaha jooga laaskoy iyo ka jooga saylac iyo inta u dhaxaysa inay xisbinimada iyo mabda' laysku aaminaa tahay wax ka weyn qoys iyo reer iyo deegaan yaroo kooban ee ay dalka iyo qaranka u dhan tahay talabaad wax weeye walaalayaal waxaynu doorannay habladaa dimuqraadi oo qeexaya in shantii muddo walba la doorto golo walba muddihiisa shantii sannadood mar in golaasha la doorto walaalayaal maanta waxaa taagan doorashadii dowladaha hoose kordheer haddii aad nagu gargaarteen haddaad nala garateen haddaad nagu gacan qabateen haddaad tuka nagu qaadeen oo kursiga sarana saarteen maantana waxaan ku soo noqonnay oo haddana idin leenahay idinkoo diiftii hore qaba iyadoo anigu qof hore wixii ka gaaray weli inaan ka soo kaban iyadoo dad badanoo doonaan maantana ma hawshoo kale dagu wadaa tii horaan oo yaabanaya haa hawsha waanu idiin wadnaa waayo nolosheennaa ku xidhan sababtuna waxay tahay waxaynu go'aansanay shantii sano laynu madax dooranno si loo helo dhiig cusub oo dalka dhaqaajiya hadday tahay madaxnimo hadday tahay dowlad hoose iyo hadday tahay baarlamaanka markaa idinka oo qaba daalkii iyo xanuunkii iyo dhibaatadii ka soo gaadhay tii madaxtooyada maantana waxaynu dhisaynaa tii dowladaha hoose si dalkeenu hore ugu maro oo aynu marba madaxdeenu u bedelno markaa waxaan codsanayaa inaad u adkaysataan dhibta ay dimuqraadiyaddu leedahay iyo hawsheed ka soo gaaraysa doorashooyinka sidaa darteed maantana waxaa taagan doorashadii dowladaha hoose xidigahay ku socotaa soo noqona mayse sinan iyo walaalnimo aan kala sarayn jirin dhammaantiyo wanaaga soomaalila ku caan tahay madaxweynaha ee xisbiga kulmiye ujeegada loo doorto waxa ay la soo martay waayo adag iyo culays siyaasadeed oo weyn oo shacbiga somalilan uga wada warhayeen muuse biixi cabdi intii uu siyaasadda ku jiray waxa uu cilmiga siyaasadda ka diyaariyey jaamacadda hargeysa muuse waa aabbe qoyskiisu degan yihiin magaalada hargeysa iskudumideeniyo dacdiyo walaaliyo dadka nolol la jecele barnaamij la mid ah ku kulmi doono waa maxamed cali cadaani oo idinle sidaas iyo nabadgelyo waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey anigoo ah maxamed cali cadaani waxaana idiin soo jeedinayaa anigoo ah maxamed cali intaynu barnaamijkan la mid aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo danihiisa gaadka dhanka guud ka daarto isku dumideeniyo dacdi